بسم الله. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal kusoo dhawaada channelkayga ustaad xabiib cabdiraxmaan. fadlan haddii aad ku cusub tahay sabscribe-ka saaro, gambaleelkana furo si ay barnaamijta hadba ay kuusoo gaaraan. insha allahu tacaala waxaynu ka hadli doonaa mowduuc aada iyo aada u muhiima. waa 6 calaamadood oo aad ku garan karaysid marka zawjkaaga uu la nool yahay sixirka nooca loo yaqaano asixir atafriiq. waa marka uusan is-ogeyn 6 calaamadood oo aad ku garanaysid. sidoo kale waxaan kuu raacinayaa qaabkii aad u daweyn lahayd ama aad u cilaajin lahayd isaga oo aan ku ogeyn. waa muuqaal aada iyo aada u muhiima. waxaa laga yaabaa qoysas fara badan in ilaahay subxaanahu wa tacaala sababkaaga dhigo badbaadadooda. sii gudbi, sii sheergare. qofka qoys dhisaa waa qof bulsho dhisa. kelimadda ah inaad sii gudbisid oo wasaaqa ku faafisid oo dad fara badan oo mashaakil ay kala dhex taagan tahay baa laga yaabaa in aad ku caawisid talooyinka. waxaynu ogsoonnahay qoysas fara badan inay la daala dhacayaan sixirada iyo dhibaatada loo geysanayo. waxaa laga yaabaa gabadhu in ay odaygeeda jeceshahay inay la noolaato, ay jeceshahay inay u dhaqanto isagii, ay jeceshahay inay awlaad u dhasho, laakiin dhibaato laga sii jeediyey, ama ha noqoto mid ehelka uga timid qaraabadiisa, ama ha noqoto hadduu reer kale leeyahay, ama ha noqoto xasad kale iyo nacab kale oo iyada raba inay ka kaxeeyaan. marka qoysku gabadha ayuu ka dhisan yahay. laajli daalika dhibaatada inta badan dumarkaa loo geystaa. marka mowduucan waxa weeyaan ninka sixirka tafriiqa la nool sidii ay xaaskiisu u cilaajin lahayd. teenan cilaajka gudagelin sidaan hore idinku ballan qaaday calaamado ayuu yeelanaya. marka calaamadahaas ayaan kuu sharxaya insha allahu tacaala. haddii aad calaamaadka odagaaga ku aragtay sida ugu dhaqsaha badan, fadlan whatsappkayga shaashada ku yaala la soo xiriir, waan kaa caawinaya insha allahu tacaala. calaamada koowaad oo aad odaygaaga ku arkaysid waxa weeyaan, ama zawjkaaga, an yasiira الزawju casabiyan yaftacilu mashaakila calaa adifati اlasbaab. in uu noqdo zawjku qof markasta dabeecad xun. waxa uu ka dabeecad xumaanayaa basically wax aan lagu dabeecad xumaan. xanaaqa ku badanaya, ma kantarooli karayo. basically xaggee aadaysa haddaad ku dhahdid uu kaa caroonaya, dagaal buu kula gelaya. yaa reegta dadan dhihi lahay. haddaad ku tiraahdo cunada si fiican u cun, dagaal buu kula gelaya. ma wax laga xanaaqa? haddaad ku tiraahdo xilli fiican iska seexo, haddaad ku tiraahdo waxa weeyaan niyahow dharkan maantaad ku baxdaye ama 2 beri baad ku baxdaye iska bedel, ma wax laga xumaadaa laga caroon karayo? waa maya. liajli daalika basically waxaasoo ka caroonaya. halkaasaad boodaysaa hal mar. maaniga daba dhigatay, maxaa kaa galay, maxaa waxaa sameeyay, maxaa kaa galay, yani fiirso. basically wax basiida ayuu ka caroonaya. calaamadda haddaad odaygaaga ku aragtid wax aan laga caroon oo bini aadam ka caroon isagoo ka caroonaya, faclan in odaygii la sixray oo la doonaya in reerkiinii la kala kaxeeyo. liajli daalika sixir tafriiqa jira. calaamaddaa qabso. calaamadda labaad oo aad arki karaysid, hal calaamad way kugu filan tahay. calaamadda labaad waa calaamad ka duwan. waxa weeye ru'yatu zawji lizawjatihi bisuuratin qabiixa. ninkii shalaytoona ku lahaa quruxay, qaaliyay, daymanay, macaanay, you so beautiful, qof wanaagsan baa tahay. ninkii shalaytoona ku lahaa maasha allah waad qurux badan tahay, maanta wuxuu kuu arkaa qofka adduunka ugu fooshan. gabadha adduunka ugu foosha xun buu kuu arkaa. gabadha uu shalay ku dhahay fariid baa tahay, qof caqli badan wuxuu ku arkaa qof nacasa. liajli daalika ninkaas waa la sixray. sixir tafriiqaa laydiin sameeyey. basically isaga noo sameeyey.
marka ninkii shalaytooda wanaagga kaa sheeganaya quruxda kaa sheeganaya ku dhahay wax walbaad ku soo baxaysaa maanta wuxuu ku leeyahay wax walbaad ku falxunta wejigaaga iga qarib ku dhahaya iga sii jeedin ku dhahaya kuma eegi karayo ku dhahaya bahal baabad war maxaa isbedelay war maxaa kugu dhacay war yaahay war saa maadan ahaan jirin war soo ishaato ma maanta kuu xumaad ha u fahmin inuu ninkii ku nacay tafriiq baa jira علامات الصحة وهذا كرت وحوي التفكير دائما في الطلاق مركز وعروض وكفرية ملية وكفرية وحدي لسكول قبري وكان ضنا يسالنا ابو الحياه ما اهنجه لان ريرك اسمه جاء انت بدون مركب كلمه كوع عليا لانه قبل باورك كليه اود كليه leedahay waxa weeye inay tira wareey fur iyadoo xumaanka ma wato ninkii iskaga dhicinaysa ninkii somehow iskaga difaacaysa laakiin raggu inta badan ma dhahan ku furaya haddaad aragtay nin ku dhahay waan ku furaya waa niyo waa wax cusub waa wax raggu inta badan dhaqan ka lahayn marka xumaanka ma ahayn ninkaana sixir tafriiq loo sameeyay marka ka bacd sixir waa talaaq inuu ku furo لأجل ذلك وكفر يا الله السابق ليس هذا أسكت عظامه أما هو أفهم كل حاجة وحنا سلام يا شيخو طبعا شر بيقعد على كل حاجة كودنا والله نورح حاكو تقولك إذا كفتك الضلاق وين استوي سموت وين أسكرتها ركع وحويا فروتين كساعات بدرين أما قبل بقول الصحيح سكر شيخو نمكن طبعا شر بفرسان أما أفر شر بفرج ولا شو مع محسنة يا وعرسنا كل حاجة مركب واحد ضوي marka tafkiirkaas waxa weeyaan waa marka saas ugu fikraya furiin ugu fikraya calaamada shanaad calaamada afraad baynu maraynaha calaamada afraad waxa weeyaan الراحة في قضاء معظم وقته خارج البيت ninkaani marka sixirka tafriiq uu qabto wuxuu jeclaysanayaa maalinta wixii ka dambeeya in uu banaanka waqtigiisa ugu badan ku soo qaato ama asxaab ha noqoto ama banaan inuu joogo ha noqoto ama meel kale inuu hoydo ha noqoto ama inuu safar kala galo ha noqoto ama inuu asxaabtiisa waqti la qaato ha noqoto guriga uu nacbaysanaya war xaga u sii socota waryaah saacada xaga ka timi baa kugu badanaysa adigeena gabadhii laajil dalika ninka waa sixraya gurigi baa loo diiday adiga baa lagu diiday marka wuxuu jeclaysanaya intuu dhib geysan lahaa isaga laftiisu istreesay wax ka khalday dareemaya moogta marka laajil dalika wuxuu sameeyaa inuu waqtiga ugu badan banaanka ku qaato shan waxa weeyaan inqibaad zawjaha xiina tara zawjaha gabadhan waa lagu dhagayaa waa lagu soo boodaya markay ninkii aragto markuu yimaado inta kale way caafimaad qabtaa oo shaqada ku maqaya ama banaanka jooga ama ay kala safrayaan dadka loo dayin ninkaas inta uu la jooga naqska nafta waa lagu dhagaya waa lagu soo booday way xanuunsanaysaa oo rafaaysa adiga laftigaaga dhibta ku dhacaysa sabab la ajli dalika ninkaas waa sixraya tafriiq baa loo sameeyay lix oo qodobka lixaad ugu dambeeyay incidam raqba fi al-macaashara al-jinsiyya wa adam wujud ladati fi al-jama'a ninkan basically galmadii buu gabaya ma doonayo gogash ma sameynayo لأجل ذلك سريت أن كيس السحنية مركا ما شرت واحدة دونيتان أما ربيتان شيخو سمهم كلا سحرية يا وحكوا يا شيخو مركا بناك تشوف قبل يدورها لكن مركا فين اللي هو يمادو أنقولي يمادو وحيصير يعني جو نفسيا قبل أنتونين لأجل ذلك يرتب حاسمية أما همد ما بيجت لي سعر يعني ما بيجت لي مركا بناك تشوف فل بانها معنا قف أول بان لا يا dhib ma qaba laakiin markaan israado final guriga imo dhibaatadaas ay ku dhacaysa marka inta badan way badan tahay ninka marka sixirka tafriiqa loo sameeyay ama wuxuu leeyahay reerka kale xaaska kale markaan dubada reer kale leeyahay weeye xaaska kale markaan la joogo caadi baan gabadhaan markaan la joogo normal ama gabadha ku leeyahay ninkaygii ima rabayo maalin su'aalaha badan marka waxa weeyaan iyaduna waxay ka mid tahay qayb ka mid ah oo ah waxa loo yaqaan incidam raqba al-jinsiyya ninkii oo aan doonayn taasina waxa weeyaan wata ugu dambaysa oo calaamaadka darkaysa lixda calaamadood fadlan haddaad mid ka mid ah ku aragtay odagaaga ila soo xiriir okay qaabkee loo cilaajinaya hadduu odaygu is og yahay zawjkaagu waa alxamdulillah wahada nicmat allah waayo qofku haddii uu xanuunkiisa dareensan yahay uu isdaweyn karaya waana basically kula fahmi karaayo dee taasi uma baahna muran sheekhi waa la quraan saaraya waa la daweynaya okay hadduusan kula fahansanin ama uusan ictiraafi karayn ama uu kugu xanaaqayo walaalow waxba ka khaldan oo calaamad baa ka muuqda sixire waran ma wax la inoo sameeyo waran ma wax lagu taag wariya wadana lama taagay iga tago xanaaqo is xanaajiyo de marka ninka ma cilaajin karaysa laajil dalika xal baad u baahantay okay xalku waa fudud yahay koob iyo 20 cisho kaliya ku daweynaysaa waa xalka basically qofka u ah koob iyo 20 cisho ayaa waxaad sameynaysaa in aad
koob biyo ah soo qaatid qur'aan baad u akhrinaysaa aayaadka sixirka tafriiqa haddaadan akhrin karayninna sheekh baad ula tegaysaa 21 cisho waad siinaysaa hadduusan biyihii kaa cabin shaah hadduu kaa cabay hadduu shaah kaa cabay sharaabka hadduu kaa cabay hadduu sharaab kaa cabi waayo wixii kale uu kaa cabi kara ugu akhri ama qof ugu geey qodob labaad baa la sameynayaa cilaajaadka looga takhaluso sida waxa loo yaqaano isha gobka sida loo qastal hindiga sida waxa loo yaqaano xabasowdada sida waxa loo yaqaano jamiic hada adwiya waxaad ugu dhex karinaysaa cunadii wax kastoo cunadii aan kasoo dhadhamayn iyaguna waa maqruuha ruqay sharciyo marka 21 cisho ayaad intaa u samaynaysaa waa inta uu wax kaa qaadanayo haddii markaa bannaanka uu joogo oo uusan guriga imaanaynin oo uu dee ku nacsan yahay ama lagaa fogayeyna markaasoo kalena waxaa samaynaysaa waxa loo yaqaano in loo sameeyo ruqya sharciya loona niyeysto loona duceeyo xalku sidaas unbuu noqonayaa صلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا